waxaan doonayaa in la wadaagno faahfaahin ku saabsan dhismahan aragtaan dhismahan guud ahaan wuxuu ku fadhiyaa dhul cabirkiisu yahay 9 mitir iyo 24 mitir wajahadu waa 9 mitir gudagalna 24 buu yahay runtii haddaad eegto foomka guud ama wajahada gurigani aad iyo aad bay qurux badan tahay mana moodid inuu yahay nusboos ama nusbalood ee waa dhisme dhammaystiran ayaad moodaa qaabka deerka aan uga kaanay baarkin fiican buu leeyahay fiyo aad iyo aad u fiican buu leeyahay gurigan jingada ayaa la qariyay oo waxaanu ka dhignay macna fooq oo kale ama dabaq suga wax loo yaqaan oo kale si quruxda ay u soo baxday gurigan hadaba gurigan marka aad barandaha ka gasho isla markii waxaad arki doontaa daarad waas oo aad iyo aad u qurux badan haddii aad xagga midig u leexato waxaa kaa qabanaya qolkii fadhiga iyo cuntada oo runtii aad iyo aad u qalabaysan oo qurux badan isla markaana waasac ah sidoo kale haddii aad u leexato dhinaca bidixda iyadana waxaa kaa xiga qolkii hurdada ee master bedroomka oo isagana runtii waasaca iyo suuligiisii oo gudaha ku leeyahay inta marka aad ka timaadid waxa kale oo dhismahan uu ka kooban yahay 3 qol oo kale oo hurdooyin iyaguna iyo suuli intaasi waa inta gudaha ku taala marka aad xagga dambe ee guriga aad u baxdo waxaad ugu tagaysaa qaybtii surface-ka oo runtii ka kooban sawna kicho si fiican loo qalabeeyay aad iyo aad qurux badan iyo qol hurdaha iyo suuli iyo waliba store hadaba guud ahaan haddii aad eegto dhismahan cabirka uu ku fadhiyo iyo sida loo qorsheeyay waxa aad dareemaysaa cabir yar oo kooban in aad ka samaysan karto wax kasta ama guri aad iyo aad u qurux badan oo si fiican ku anfacaya hadaba macmiil haddii aad rabto in lagu sameeyo design dhulkaagu cabirku doono ahaado nooc doono ahaado iyo haddii aad jeceshahay dhismaha laftarkiisa lagu fuliyo oo lagu suka waafajiyo dhismahaagii iyo designkaagii waxaanu kuu soo dhaweynaynaa gacmo furan fadlan nagala soo xidhiidh nambarka shaashada ku qoran mahadsanid